business waxa ugu horeeya ee la qabtaa waa inaad macmiil daryeesho haddii shaqada aynu qabanaynaa aanay ahayn macmiil aynu daryeelayno macnaheedu waa maxay the business ma nihin marka waxaynu customer service u baranaynaa business baynu nahay laba waxaynu u baranaynaa customer service-ka markaynu macmiilkii daryeelno waxay noogu xigaa waxa weeye inaynu xidhiidh aan dhammaanin la samayno waxaynu uga jeednaa waxaad doonta ka shaqee annagu imika xafiis ahaan waxaanu ku dadaalaynaa inaanu mar walba hilibsan la shaqayno oonu isku soo noqono ayaynu ku dadaalaynaa waay maxaanu uga jeednaa dee si aanu business sii shaqeeya u noqono haddii kale ma shaqaynayno idinkuna maxaa ku dadaalaysaan qofka maalin hilibka idinka iibsada inuu maxay sameeyo inuu maalin walba idinku soo noqdo sababtaasaynu u baranaynaa customer service waxaynu u baranaynaa inaynu garanno qofku wuxuu doonayo inta aanu isagu ina weydiin iminka tusaale baan idin weydiinayaa haddaad meel tagto aad wax ka iibsanayso oo qofka joogaa intuu magacaagoo saddexan kuugu yeedho uu ku idhaahdo ahlan wasahlan soo dhowow alaabtaadii waan hayaa waa tan adiga noocyadaadii beriyahan way maqnaayeen dhag uu kuu dhiibo maxaa dhici kara inuu markaba aad iibsataa dhici kara xataa adoon kusoo talagelin waayo maxaa ku riixaya qofkani siduu kuu soo dhoweeyey qofku adduunyada muxuu ugu jecel yahay baa la idhahdaa magaciisa soo psychologist waxay idhahdaan ilmaha yar wuxuu ugu farxad badan yahay bay idhahdaan markuu isku xidho dhawaaqa loogu dhawaaqayay magaciisa waayo ilmo kasta oo yar haddaad u fiirsato maalinta magaciisa iyo dhawaaqa isla barto wuu qoslaa hebel oo tirahdo ama heblaayo tirahdo isagoo qosliyuu kusoo eegaya because wuxuu bartay maxay inuu kan yahay qof kastaana magaciisu jecel yahay marka macnaheedu waxa weeye waxaynu customer service-ka u baranaynaa inaynu dadka fahamno had iyo jeeraale soo jeedno naqaano qof waliba wuxuu inala qabto wuxuu inaga iibsado wuxuu jecel yahay wuxuu doonayo dabeedna marka dambe aynu nahna alaabtaadii maanta way taallaa ama aynu u sheegno nidhaahno way soo socotaa ee igu soo yar noqo ama annagaa kuu keeni doona hadda ma taalo marka qofkii intaanu ku weydiinin maxaad u diyaarisay waayo waad baratay waad fahamtay waad la macaamishay waad soo dhoweysay qofkii wuu kugu kalsoonaaday levelka kalsoonida la yidhahdo qofku markuu gaadho ma jiraan dad idinla soo hadlo oo aan waxbaba idin weydiinay yidhahdaa ii soo diraad u dirtaan waxay idinku soo celinayaanay jirin waay maxaa keenay kalsooni baa dhisantay marka xidhiidhkan aynu dhisaynaa daryeelkanuu ka imanaya inaynu xidhiidhkan iyo daryeelkan dhisnana waxaa ka imanaysa inaynu garanno qof waliba wuxuu doonayo waay waxaynu customer service-ka kale u baranaynaa qof ku dhashaa ma jiro customer service-ka ilaahay subxana wa tacaala hibooyin kala duwan weyna siiyey dadku waji furnaanta abuur ahaan way ku kala duwan yihiin furfurnaanta abuur ahaan way ku kala duwan yihiin farxad badnaanta abuur ahaan way ku kala duwan yihiin laakiin qof ku dhasha farsamada ama skillka la yidhahda customer service ma jiro marka qof waliba waa inuu barto waa inuu improve gareeyo waa inuu isku dayo inuu fahmo had iyo jeeraalana waxyaabaha inaga dhiman ee haddii qof waliba iskii u samayn lahaa aynu guulaysan lahayn waxaa ka mid a qof kastaa wuxuu ka shaqaynayo hadduu aqoonteeda raadiyo mar walba aqoonteeda raadiyo oo joogteeyo matalan service baad qabanaysaa matalan accounting baad qabanaysaa matalan management baad samaynaysaa matalan marketing baad samaynaysaa haddaad aqoontiisa raadiso dee cid kuu haysaa ma jirto adaa urursan kara marka qofku inuu mar walba qof ku dhashaa ma jiro waxa la yidhaahdo had iyo jeeraale businessesku waxay reward gareeyaan cidda macaamiisha badan keenta laakiin customer service markaynu baranno waxaynu reward garayn doonaa cidda macmiilka yimi haysa hadda ma fahamtaan halkaa waxaynu u baranaynaa inaynu fahamno macmiil yimi oo la hayaa inay ka qiimo badan tahay maxay mid lasoo haasaawiyo lasoo muslaxo oo meesha la keeno marka markaynu customer service-ka fahamno waxaynu fahmaynaa sida ay muhiimka u tahay in qof cusub meesha lagu soo biiriyo oo wax ka iibsada inay ka sii muhiimad badan tahay kii joogay oo la hayo haddaynu kii joogay hayn kari weyno maxaynu noqonaynaa qasabadda biyuhoo kale biyuhu xagga dambena qasabadda way ka soo galaan xagga horena way ka baxaan soo ma miyay ku hakadaan ya
marka waxaynu doonaynaa qasabad xaggaana ka furan xaggana ka xidhanoo waxba ka bixinaynu noqonayno macnaha cidda soo gashaa ay weligeed ku jirto maxaynu u baranaynaa inaynu fahamno faraqa u dhexeeya customer service iyo customer experience waynu si yar dhexgeli doonaa laakiin customer service waynu soo sheegnay maxaynu ku sheegnay loo qabto maxay macaamilka iyadoo hab farsamaysan oo caawimo ku jirto oo jacayl ku jiro loogu adeegayo oo wuxuu doonayay laga caawinayo